أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا دكسي ذو آذان وحان ورديا gabadhan walaashayna iskoolkan baro ama bar muddo sano awalka soo baradaan muddo sano anigu cunuguneen saarayo sinka maxamed tikatihiin barnaamijkeeni miro dhalkiisa inkastoo ay nasiib aan u yeelanay inaan kuwii hore u sameeyno barnaamij xaflad ah laakiin ay dufcadii saddexaad nasiib u yeesheen in aan u qabano barnaamij waxaa farxad gelin jiray marka arko hooyo haysato cunug yar ee rabta inay qaadato cashir waxaa laga yaabaa duhur inaad gurigiina ka soo baxdo gaari adoon haysanin laga yaabo xataa inaad haysanin wax tarasibood aad ku soo raacdo xarunta aad rabto inaad maanta cashir ka bixisanay aad kaaga fog tahay maalinka barnaamijkan bilaabeynay dad badan waxay lahaayeen mawaalintii dawladaaban wadi karine dhammaan asxaabtii ila garab taagneed hiil iyo hoo iyo dhiirigelinba waa u wada mahadcelinayaa waqtigoo yar awgiis waxaan soo dhaweynayaa ruuxa ka socda wasaaradda waxbarashada walaashay Aamin Sharaf aad baan ugu mahadcelinayaa aniga ku hadlay magacayga magaca wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dawlad goboleedka Jubbaland waan idin hambalyeynaa waan ku faraxsanahay heerka aad soo gaadheen idinkii Aamina wasaaradda partnership la tahay oo xubin kamid ah wasaaradda ka tirsan dufcadiinan inaad waxbarashadiina aad sii wadataan leedin helo waxbarasho bilaasha sidii aad tamba bilaashka aad ugu haydeen inaad heshaan waan idin kala shaqeyn doonaa eebaweynaha duraali oo ka dhigo wadna mahadsantiin runtii waa faraxsana maanta farxadeeda lama soo koobi karo inaan nii hambaliyay maanta dad badan oo idinka kamid ah way taqaaniin qayb ayaan ka soo qaatay waxbarashadiina waxaan idin leeyahay hambalyo dadaalkiina hore ka sii insha Allah taala waan garab taagana mar walba waan santiin waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijyadan noocan oo kala in magaalada lagu soo kordhiyo waxaan filayaa Aamin Sharaf oo kamid ah hogaamadii barnaamijkan soo fuliyay ما ها برنامج كيكية كوباد أي قبضته بل سدوا كانوا حي كذا قاعدتي تلوين يتسالوين يبرنامج هذا قرطنا وحرمت كسمال أي كلا سوق قاعدتي وها حقيقة أقومت هنا تاي إفتين كاس حدي أديكوا أقوميها ربشة الأوفايدين ولا حتى آخر ولا رجوع عذاب because ninka cilmiga uu leeyahay mujtamaciisa uga faa'iideyn waayay cilmigiisu wuxuu ku fadhiyaa ma laha waxa weey waqtiga aad u yar inta ka badan ma sii wadi karo aniga fursada dadka iga dambeeyana fiirinaya aad baad u mahadsantihiin waa soo koobaya billahi tawfiiq Aamin Sharaf saan aaminsanahay ayadaa la imaatay hal abuurka waxay ku shaqeynaysay volunteer cid lacag siinaysana ma sii jirin duruufo adag ay ku shaqeynaysay cid kalaasi ka dhista aansan jirin har iyo habeen ay u lugeynaysay in haweenka faraha badan ee maanta isku imaado ay wax fahmaan wax bartaan dalkoodana ay wax ka bedelaan dhalinyarada noocaas oo kala ah waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo la abaalmariyo dawladuna ay tunka saarato waa gabar yar oo runtii ku dhiiranayso wax aad muhiim u ah dalkana wax badan ka qabanayo lacag ayada qaas u ama rabtay waxay rabtaa ummadda Soomaaliyeed ee gabdhaha Soomaaliyeed in noloshooda wax laga bedelo in loo fududeeyo facilitationkii iskuuladii iyo kalaasyadii iyo nidaamkii ay ilmaha wax ku bari laga caawiyo waana ku hambaleynaynaa Aamin Sharaf guul bay noo tahay
dhallinyarada Soomaaliyeedna horseed iyo waxa u tahay tusaale wanaagsan annagana mar walba waxa waajibna saaran dhallinyarada hal abuurka leh inaan dhiirigelino waxaan ku soo gunaanadayaa hambalyo waan idin hambalyaynayaa gabdhaha quruxda badan iyo wiilashanba ee duruufaha adag wax ku soo bartay ee waqtiga adag ku soo bixiyay inaad maanta gabagabada imaataan aad ku qalin jabin lahaydeen waxaa idinkula dardaarmanaya waxbarasho ma dhammaato inaad usii dhabar adeegtaan levelka labaad aadaan waa wixii idinka dhiman oo hadda duruufiya adag aad wax ku soo barateen levelka labaad waxaa laga yaabaa dowladdiina inay wax badan idinla qabato inaanad ka niyo jabin waxbarashaduna sidiisaba da' ma aha hooyooyinka halkan fadhiya runtii tusaale wanaagsan aad hooyooyinka Soomaaliyeed u tihiin aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo in aad dib u soo celisaan haykalkii iyo haybadii iyo sharaftii aan ku lahayn ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka guuleysta waan idin mahadcelinayaa aad u mahadsantiin agaasimaha wasaaradda haweenka agaasime Maxamed Xasan Maxamed Sodow marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gabadhii Aamina Sharaf ahayd ee barnaamijkan dadaalka badan ku bixisay iyo asxaabteeda oo gacan midig u ahaa oo taageero badan siinayay aad ayaan idinku mahad celinayaa maanta oo la joogo qarnigii 21aad in hooyo ama gabar ay sidii wax loo qoro ama loo akhriyo ay garan waysa waxay kamid ahaan lahayd nasiib darrada ama haday jirta ayadoo welina haysata fursad ay wax ku barato waxay noqonaysaa nasiib darre marka in lala dagaalamo nasiib darrada noocaas waxay ku fadhidaa macno badan aad ayay muhiim u tahay waxa la dhahaa Soomaalida alqabsi dhahaya hadii gabar wax la baro macnaheedu waxa weeye caalamka oo wax la baray waxaan rabaa halkan inaan idinka xaqiijiyo maanta gabdhaheena Soomaalida wax bartay in ay taasi u noqdeen tusaale cad oo indha badan lagu wada arkay waayo gabar ayaa u soo xilqaantay wali duruufaada wax ku baratay dalkeeda aan ka bixin jaamacadihii dalka ee maxalliga ahaana ka baxay door kale iyo meelo kale aan soo marmaray iyadoo colaadii iyo dhibaatadii iyo nolosha ay ku soo kortay iyo duruufihii jiray ayay go'aan gaartay maanta inay u soo xilqaanto dalkeedii iyo bulshadeedii inay wax tarto marka waa aran aan la dhalisan karin aran dhaxalgal ah waxaan leeyahay mar kale way ku maadsan tahay gabdhaha ama wiilashii halkan wax ku baranayay oo barnaamijka bar ama bar ka faa'iideysanayay waxaan filayaa waa wax muhiim ah waayo aran sahlan ma aha in qof oo isxilqaamo oo dafcada hadda ay muuqato waa dafcadii saddexaad imagine adigoon lagu garabayna in aad waxa soo challenge ka gudubtid oo dad soo saartid oo wax bartid waxay leedahay culeyskeeda anaga ka wasaarad ahaan insha Allah taala wax kasta oo waxtar ah iyo taageera aan ka geysan karnana in anagu naftarkeena isxilqaana ayaan rajaynaynaa insha Allah aad ayaad u mahadsantihiin aad ayay dhiirigelinaysaa farxad gooniyeena ii tahay munaasabada saddexaad ee qalinjibinta inaan ka soo qayb galo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan bixin doonaa shahaado sharaftii macallimiinta iyo shahaadadii dhalinyaradan barnaamijka inta badan waxaa leeyahay haween laakiin wiilal xataa way ku jireen waa meena xusin wiilal ka faa'iideysta ayagana inkastoo ayna badnayn oo haween u badnaayeen waxaan bilaabi doonaa shahaadooyinkii waxaan ku wareejinayaa ustaad Kamaal shahaadooyinka
Podcast.